Ma dareenta murqa xanuun iyo tabaryari joogto ah kaas oo saameyn ku yeesha noloshaada. Magacaygu waa Dr. Maxamed Faarax Xiddi, ku takhasusay cudurrada ku dhaca neerfaha kana howlgala Kalkaal Hospital magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa maanta in halkan ka soo jeediyo wacyigelin ku saabsan xanuunada ku dhaca murqaha oo loo yaqaano myopathy-ga. Xanuunadan inta badan waxay saameeyaan dhammaan murqaha jirka, way saameyn karaan, waxayna leeyihiin inuu saameyn badan uga timaado asoo dareemayo inuu tabaryari oo xagga murqaha uu dareemo xilliyada qaarkood. Mararka qaar xanuunkani wuxuu ku bilowdaa si tartiib ah ilaa oo marka dambe qofka uu saameyn badan ku yeesho xagga noloshiisa. Waxyaabaha ugu badan oo qofku uu dareemi karo waxaa kamid ah tabaryari xagga murqaha, gacmaha iyo lugaha, sidoo kale inuu dareemo qeybaha kore sida garbaha oo kale inuu ka dareemo ama uu gacmuhu kale uu qaadi waayo. Mararka qaar uu socodka saameeyo oo qofkii uu soo gaabiyo socodkiisii. Waxyaabaha ugu badan oo sababa xanuunkan cillad ku timaada murqaha iyo habdhiska neerfaha u dhaxeeya. Murqaha waxyaabaha sababi kara waxaa kamid ah inuu qofkii caabuq oo kale uu saameeyo, sidoo kale inuu saameeyo waxa loo yaqaano dhaxal inuu ku yimaado oo yacni wiraatha ama dhaxal oo kale oo murqaha tabaryari badan u keento. Sidoo kale waxyaabaha metabolic disorder-ka loo yaqaano sida sonkorta oo kale iyo waxyaabahaas inuu sababaha ay kamid noqon kartaa. Calaamada ugu muhiimsanna waxa weeyaan qofku inuu dareemo tabaryari iyo murqa xanuun joogto ah oo marka ka dambeysa ka sii dareyso. Haddaba xanuunadan oo ku dhaca murqaha isla markaasna saameyn ku yeesha qofka noloshiisa, baaritaanada ugu muhiimsan oo mari karo waxaa kamid ah si guud loo baaro murqaha, dhiigga murqaha, sidoo kale in la baaro waxyaabaha kale oo la xiriiri kara oo keeni kara murqa xanuunkan oo hore u soo sheegnay. In la daaweeyo xanuunkan waxay ku xiran tahay sababtii in marka hore la ogaado, kadibna xilli hore qofku uu helo talo ku filan iyo waxyaabaha qofkani ka caawi kara inay xaaladdan ay si tartiib u soo kabsado xagga murqaha. Markasta oo calaamadahan murqa xanuunka badan isku aragtid oo waliba saameyn ku yeelanayso awoodda gacmahaada iyo lugahaada, waxaa loo baahan yahay inaad la xiriirtid dhakhtarka ku habboon si aad u heshid xilli hore talo ku habboon iyo caafimaad ama daawo oo xilli hore la ogaado xanuunka markaas nuuca uu yahay iyo qaabka loo daaweyn karo.